Ra'iisul Wasaaraha waddanka Ingiriiska ee maanta xilka loo dhaariyay Liz Truss ayaa shaacisay kooxda kubadda cagta ay taageerto, waxaana falcelin la yaab leh ka sameeyay jamaahiirta kubadda cagta oo qaarkood ku farxeen iyadoo qaar kalena ay la yaabeen. Liz Truss ayaa la filayay inay taageerto mid ka mid ah kooxaha waaweyn sida Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ama kooxda Aston Villa oo inta badan madaxda dalkaasi ay taageeraan. Hase yeeshee ra'iisul wasaaraha cusub Ingiriiska ayaa wadadaasi ka leexatay. Truss ayaa ku soo kortay magaalada Yorkshire oo ay ka dhisan yihiin Leeds United, Manchester United iyo Manchester City, balse waxay markii dambe u guurtay magaalada Norwich oo ay ka dhisan tahay kooxda xil ciyaareedkii hore ka dhacday horyaalka Premier League ee Norwich City. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxay yaraanteeda taageeri jirtay kooxda Leeds United inkastoo ay qiratay in ay ka baqi jirtay in ay tagto garoonka Elland Road. Hase yeeshee markii dambe ay si dhaba u xulatay kooxda ay haatan taageerto ee ka dhisan halka ay ku barbaartay oo taageerayaashooda saameyn ay ku yeesheen kana mid noqotay. iyadoo ka hadlaysay arintan waxay tiri hadda maadaama aan ku noolaa magaalada Yorkshire waxaana u guuray magaalada Norwich waanan ka baqi jiray inaan sheego waan ka cabsanayay inaan yiraahdo Elland Road ayaan tagi jiray. waxaan noqday taageero Norwich City waa koox qoys wanaagsan ma garanaysa waxaan oran jiray milkiilaha Norwich City Smith waa haweeney cajiiba.